Warahmatullahi taala wabarakatuh kusoo dhawaada qaybta grammarka waxaan ka hadlaynaa caawa articles anda iyo derigiisa isticmaalkooda. Casharkan wuxuu aad u anfacayaa qeybaha ama qaabka loo dhisayo lamkas jumladaha meelaha waxyaaba ku habboon eedi aan idiida. Articles maxaa la marka articles la markaas are considered waxa loo tixgeliyaa adjectives la markaas inay yihiin sifooyin waxa la dee iyagu are wixii also sidoo kale include isku jiraan among dhaxal la markaasi determinants ee loo go'aaminayo. There are waxa jira 3 articles article ay in English-ka waxay kaliya qof a iyo an iyo d. Kinds of articles maxaa lagu magacaabaa waa labo definite articles waxaa kamid ah markaasi a ana kamid ah indefinite articles ayagana waxaa kamid ah d ayaa kamid ah. Indefinite articles maxaa la marka ama lamkas ama or an when they are used before iyaga waxaa loo isticmaalaa ka hor singular countable nouns waxyaaba si kaliya ah lamkas magaca loo isticmaalo oo kaliya waxaa la markaas we use waxaan isticmaalnaa before core a word array beginning taasoo ay ku bilaabanayso with a consonant la markaasi shibane tusaale waxaa loo isticmaalaa kaliya shibanaha waxa ay waa shiban iyo xaraf marka abc la fiiriyo waxay waa 26 laakiin hadii la reebo vowelka laga reebo shanta waxaa soo riflaa 21 xarfood markay ku bilaawdaan waxaa lagu hormarsiinaa markaas eeda lagu hormarsiinaa sidoo tusaale waxaa kamid ah he is a cow asii waa sacala meesha waxaa ku jira markaasi cow ku jiro ay wadato markaasi si ay ku bilaabato ee lagu soo hormarsiiyay lambar 2 waxaa la she is wearing a skirt iyadoo ay xiranaysaa skirt waxaa lagu soo hormarsiiyay markaas ee lagu soo hormarsiiyay lambar 3 tusaale 3 waxaa la magacaabay is waxaa jira amaanin waxaa la markaas on the house top la markaas qaybta guriga la markaas qaybta u sareysa ama ku uu koreeya la markaas tusaale amaan waa magac waxay ka bilaabataa markaas ay ka bilaabataa waxa la soo hormarsiiyay ee lagu soo hormarsiiyay lambarka afraad ama tusaale afraad waxaan aqoonaa have you seen a zebra meesha ka maqan markaas ee inay gelisaa la rabaa miyaad aragtay la markaas dimeer furo miyaad aragtay lambarka shanaad are you student adigu arday miyaad student waxa ka bilaabatay ee ka bilaabatay sidaas darteed waa inaad ka soo hormarisaa marka eeda ka soo hormarinaya of this schoolkaani I have received waxaan helay a letter warqad from my mother waxaan warqad ka helay la markaasi hooyaday tusaale letter waa xar waa magacii ee lagu hormarsiiyay marka ashkan wuxuu aad u anfacayaa ardayda form 4ka waxaa la yiraahdaa in loo articles sida qaabka loo geliyo kale inay break ay galaan imtixaanka dawladda ilaahay karaan ku ilaahay u fududeeyo waxaan galaan markaas an maxaa la we use waxaan u sameeynaa and before la markaas an waxaa loo isticmaalaa ka hor a word array begin with taasoo ay ku bilaabanayso a vowel sound taasoo ku bilaabanayso shan waa a e i o u marka ku bilaabato waxa la hormarsiinaa markaas ana la hormarsiinaa tusaale waxa lagu soo qaata an 11 waa maroodi waxa ka bilaabato markaas iyo ka bilaabato waxa lagu soo hormarsiinaa markaas ana lagu soo hormarsiinaa an 11 maroodigu is a big animal waa xayawaan weyn la markaasi tusaale labaad waxa la markaasi my father abahay works wuxuu ku shaqeeyaa in an office xafiiska ku shaqeeya marka eraygan waa preposition waaye antan waxa markaas articles ka mid ah can you fly ala markaas an airplane adigu diyaarad ku duuleysaa ana lagu soo hormarsiinaa marka and have you give me an able missingisa and tafahmisiinaysa iyana tusaale markaas an able emailka lagu hormarsiiyay ana lagu soo hormarsiiyay waxaa la markaas an able articles waxa ku jira markaas ku jirto wixii aad ka fahanteen tusaale kala samaysan kartaan tusaalaha badan inaad samaysaan haddii cashirka dhan waxaa ka hadlaa haddii ka bilaabato xarafka waxaa ka hormarsiinaa ama shaqal hadduu ka bilaabo ana ka hormarsiinay haddii ay ka bilaabatana consonant haddii ay ka bilaabato waxaa ka hormarsiinaa markaasi eeda ka hormarsiinay sida cow kale articles intaas loo magacaabaa diida marka la kala insha Allah fadlan channelkeena ku cusub subscribe na share like na share si ay asxaab kale u gaaraan imtixaanka ugu fudan insha Allah